waan islaamay meel walba joogteen kusoo dhawaashaha runtii labada beri oo lisoo dhaafay attack weyn ayaa igu hay dhowr qof walaa been kuma sheegay dhowr qof ayaa ila hadashay mise commentiyo badan waxaan arkay oo dadka faraxsan kamid yihiin oo haddana critics badan igu hay balse ilaahay amarkiis saake baa yar wada hadalnay been kuma sheegay 3 saac baan wada hadlaynay 3 saacna wax kale aan ka hadlaynay oo akhbaaro kale aan ka hadlaynay oo ka gudub laakiinse intii ugu badneed waxay ahayd qaladaadka aniga iga tabanayo haddii aan nahay dadka LGBT-ga iyo qaladaadka badana basidooda aan sameeyo waxaan soo ogaaday Queensland inay aniga iga jecel Queensland aniga waa jeclaa aniga waan jeclaa Queensland inay iga jecel yahay ayaan soo ogaaday ala kulli xaal runtii dadkii hod binaadam baan nahay qaladaadku way dhacaan waxyaalo badan oo waxaa jirtay hadda ka horna waan ka hadlay aan marka adiga aan duubayay misabo oo aan soo gelinay social media aan isla saxsanaa balse aan ka shalay dib dambe aan uga shalay adduunyada waxaan ugu nacbanahay inaan qof inaan farta ku fiiqoon oo qofkaas waa dadka faraxsan sababta taa aniga awooddaas asaga uu leeyahay oo inuu banaanka isku keeno inaan aniga ka qaado awoodda aan ka qaado maaha balse qaladaadka badidooda ee dadka igu dacaydeenayaan waxay ahaayeen misaba ee tahay hooyo oon ku oysiiyey oon baraha bulshadana aan soo dhigay runtii haddii aan nahayna dadka faraxsan waxaan nahay dad aada u jilicsan xagga hooyooyinka aad iyo aad ayaan ugu jilicsanahay waxaan nahay dad hooyo jecel aniga hooyaday weli waan jeclahay danta iyo duruufta iyo waxaa ina kala geysay iyo qaladkii aniga aan galay oon qirinayo ayaa ina kala geysay marka haddii taasi aad iga tawanayseen walaalayaal haddii qalad way dhacaan wixii maxay u dhacaan maxaa ka qabanaa ayaa la dhahaa marka way dhaceen runtii shalaytana waxaan bartay habka loo report gareeyo YouTube leeda habka loo report gareeyo oo strike lagu qabta ayaan shalayta bartay igu horeysay clip oo hooyaday oonayso hadduu YouTube ku jiro YouTube-ka channelka warning hataa masinaayay 7 beri warning la siiyaa isla markii waan ka xirayaa clip dambe oo hooyaday oonayso YouTube inaan ku arko marwii TikTok-na waan ka dabagalayaa sidaas oo kale waan magacaadii waan ka saarayaa waa dagaal hadda aan u soo jeesaday inaan dadka la dagaaltamo runtii way jiraan critic wax la yiraahdo way jiraan aniga orto ma lihi dadka ha wada jeclaadaan mana li wada jeclaan karo dad badan maalin walba hadalka aan ku hadlo dad baa dhibsanay qaarna waxay dhahayaan okay baataa ilaa hadda balse haddii aad social media-gayga hayso oo aad aragto magacaadii ood aragto clip adiga oo dhibsanayso oo anigaan soo geliyay fadlan haddii aad comment intaad kusoo qorto oo commenti aad arkin inaan soo jawaabin social media-gayga aad hayso baraha bulshada Facebook mise Instagram aad iga hayso fadlan message iga soo dir mise aad lambarkayga hayso waan kusoo jawaabayaa mise waan ka bixinayaa clipka haddaad dhibsatay taas waa taas
midda kale waxaan halkan rabaa inaan ugu raaligeliyo dadkeena transgender waxaa jirtaa qofkii sida loogu yeero loo rabay in loogu yeero pronounceka hadduu qofka asagoo he aad she ku tiraahdo inay qalad tahay qofka asagoo she ahna asagoo inaad he ku tiraahdo waa qalad qofkii asagoo they ahna inaad him aad ku tiraahdo waa qalad ayagoo them ahna inaad adiga aad noom kale pronouncekooda sidii la rabay oo loogu yeerin waa qalad marka waxaan halkan ku qaldamay samsam raage magacaa inaan kusoo qoro blue makeupka blue makeup horta waa brandigeeda blue makeup waa brandigeeda ee ku shaqaysato marka inaan meesha soo dhigo kuma qaldamin laakiin inaan fu'aad kusoo qoro qalad weyn ay ahayd aad baan uga raaligelinayaa dadka transgenderga oo markaa adiga dibsatay I know it is sensitive pronounkaada in lagugu yeerin aad iyo aad qalad weyn u tahay marka waan iga raaligelinayaa halkan haddii aad tahay LGBTIQ fadlan fikradahaada igala soo wadaag baraha bulshada igala soo wadaag wixii aad rabto inaan ka hadlo wixii aad rabinna inaan ka hadlin xagga igala soo wadaag waxaan kaloo midda kale oo jirto oo liiga tabsado waxay ahayd inaan aniga banaanka soo dhigo oon dhaho rag badanaa jiraan oo xaasas qabo oo haddana anaka ina runtii taas aad iyo aad qalad u weyn ayay ahayd eena u tahay waana ka raaligelinaya inta i dhabsatay sababtay tahayna waxay tahay aniga horta qof bini aadan oo dhigi kara qofkaas waa sidaas ma jiro anigoona indhahay ku arkin asagoona aniga ila saaxanin mise asagoo aniga aan la saaxanin qof aan dhihi karo waa sidaas ma jirto ma jirtaa inaan aniga shactir ahaan mise xanaaq ahaan aan intaan iska soo fadhiista aan hadlo way jirtaa badana balse uma fiirsadi badidooda uma fiirsadi hadalaha aan ku hadlo balse hadda wixii laga bilaabo inaan fiirsado waa hadalahaaso marka waan ka raali gelinayaa haddii aad marka adiga xaas leedahay oo nin xaas leh aad tahay oo waan iga raali gelinayaa rag badan waxaa jiraan wanaagsan raggii waan isku soo wada qabtay balaayo balaayaa isku wada daray alla balaayaa isku wada daray balaayaa isku wada daray kowle ani koleyta aniga horta rajo ma lihi kowle rajo ma lihi markaan dhintana odaygaan kula dadaarmo waxaan dhahay qabrigeyga qofnaa u sheegin geerida qofnaa u sheegin igub markaa baddana iraaci kowdhe wax rajoon leeyahay ma laha laakiin rajadaydi ugu koowaad oo markaa aniga aan baraha bulshada aan la soo fadhiistay waxay ahayd inaan dadka isbaro inaan dadka baro inaan jirno inaan dad jirna nahay inaan nahay inaan noqon doono walaalka inaan noqon doono wiil adiga abtiya u tahay mise adeera u tahay inaan noqon doono wiil aad dhali doonto marka dadkana ay ogaadaan sensitivity awareness inay ogaadaan ayna miseba dhibaatada ugu weyn ina lagu haayo haddii aan nahay LGBTI dad baa iga garab hadlayo waan focuskayga yar كوان السلام الله عليه انت سمعنا ما انت من الوداع الى وقت تبع باي